saxaabigan qiimaha badan magaciisu waa Khalid bin Sayd ma malaynayo inuu jiro qof muslim ah oo aan aqoon cidda uu yahay rabbiga abuuray cirka iyo dhulka ayaa u doortay inuu marti qaado nabigiisa Maxamed markii uu hijrooday magaalada Madiina Allahumma ansurna alayhim bi barakati Allahu akbar guriga Abu Ayyub waxa uu ka koobnaa laba dabaq nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayuu u diyaariyay dabaqa kore balse nabiga ayaa doortay dabaqa hoose inuu dego Abu Ayyub isagana amarka nabiga ayuu qaatay oo meeshii uu jeclaa ayuu dajiyay markii uu gabalku dhacay Abu Ayyub iyo xaaskiisa ayaa qolka isugu tagay Abu Ayyub ayaa xaaskiisa ku yiri maxaan sameeynay rasuulka miyaa hoos seexanaya oo inaga kor miyaa seexanaynaa rasuulka alla korkiisa miyaan ku soconaynaa isaga iyo waxyigana miyaan kala dhexgalaynaa haddaba waan halaagsanay iyagoo sidaas u wareersan waxay sameeyeen garan la ayuu waagi bariyay Abu Ayyub markaas ayuu ku yiri suubanaheena aniga iyo Ayyub wax hurdo ah nagama soo dhicin xalay nabiga ayaa weydiiyay sababta waxa uu sheegay inay ka walwalsan yihiin inay seexdaan guri uu hoostiisa jiifo suubanaheena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabiga ayaa markaas qalbiga u dajiyay Abu Ayyub amarka nabiga ayuu qaatay wuxuu yiri isagoo ka sheekeynaya arintaas habeenada kamid ah ayaa waxa naga jabay weel ay ku jiraan biyo anagoo jiifna rasuulka alla dushiisa biyihii ayaa dareeray waxaan ka baqnay inay ku dhibcaan rasuulka alle aniga iyo Ayyub waxaanu qaadanay go aan kaligiis ka haysanay dhar waxaanu bilownay inaan habeenkii oo dhan ku qallajino biyaha si aysan rasuulka alle u gaarin dhibic biyo ah isagoo jiifo hoosteena hurdana aan uga kicin nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu joogay guriga Abu Ayyub muddo ku dhow 7 bilood markii uu dhisay masaajidka ayuu ka guuray bas kale cajiib ah habeenada kamid ah ayaa waxa soo baxay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu waxa uu masjidka ku arkay Umar ayuu ku yiri maxaa banaanka ku soo saaray xilligan Abu Bakr ayaa u sheegay inuu baahi darteed la soo baxay Umar ayaa ku yiri aniga baahi ayaa soo saartay iyagoo sidaas ah waxa soo baxay nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu ku yiri maxaa idin soo saaray xilligan waxay dhaheen baahi ayaa ina soo saartay rasuulkii Allah nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa yiri rabbiga nafteeda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay aniga taas ayaan la soo baxay ee soo raaca nabiga iyo labadiisi saaxiib waxay tageen guriga Abu Ayyub radiyallahu anhu Abu Ayyub waxa uu dhaqan u lahaa maalin walba inuu nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu dhiga cunto si marka uu yimaado uu cuno cuntadaas haddii uu imaan waayana qoyskiisa ayuu siin jiray xaaskiisa Abu Ayyub ayaa albaabka ka furtay nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri aaway Abu Ayyub isaguna markuu maqlay codka nabiga ayuu si farxad leh u soo dhaweeyay nabiga iyo saaxiibadiis Abu Ayyub neef ayuu gowracay xaaskiisana waxa uu ku yiri cajiinka inoo diyaari nabiga iyo labadiisi saaxiib ayuu hordhigay waxay cunaan markii ay dhargeen nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo ilmeynaya ayaa wuxuu yiri rabbiga nafteeda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay nimcadan waa tan qiyaamaha la isweydiin doono Abu Ayyub radiyallahu anhu waxa uu u jeclaa jihaadka yaa la dartii inuu shahiido jacaylka uu jihaadka u qabayna waxaan kaaga sheegi doonaa qiso ay mudan tahay in laga sheekeeyo xilligu amiirka ka Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu ayaa jihaad waxa uu baxay ciidan uu hogaaminayay Yazid bin Muawiya kaas oo ay ku jireen saxaabo badan oo ay kamid ahaayeen Hussein bin Ali Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Subayr iyo Abdullah Umar bin Aas iyagoo duulaan ku qaaday caasimadii boqortooyada Room ee Qustandiniya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu isagoo 80 jir ah ayuu iska diiday inuu ka haro jihaadka libaxidii muslimiinta ee uu aaminay dhiigga gaalada Ruumaanka markii ay gaareen caasimadii reer Yurub ciidankii muslimiinta iyo kuwa gaaladana ay soo joogaan ayaa waxay hal mar arkeen nin wajiga u duuban yahay faraskiisa cadna kula duulaya hawada sida gorgor ugaarsi ku jira dhanka cadawgana sida duufaanta ugu socda gaaladii Ruumaanka waxay ku wareereen waxay indhahoodu arkaan run iyo riyo waxay tahay ciidankii muslimiinta indhaha ay la raaceen ninkan aan marnaba dhimashada ka baqayn sida tooska ahna ugu socda dhanka geerida waaba Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu oo 80 sano kor u dhaafay isagoo la moodo wiil yar oo 20 jir ah kaas oo hadda soo koraya
Abu Ayyub waxa uu qaatay seeftiisii si uu ugula dagaalamo gaalada ilaa markii dambe uu dareemay inay dhimashadiisa soo dhawaatay. Markaas ayuu hogaamiyihii muslimiintu ka dalbaday inuu salaan ka gaarsiiyo ciidanka muslimiinta ayna ku aasaan meel u dhow Qustandiniya. Hogaamiyaha muslimiinta Yasiid bin Mucaawiya isaguna waxa uu fuliyay codsigii saxaabiga qiimaha badan iyagoo ku aasay meel u dhow darbiyada Qustandiniya. waanu kaa qaadnay salaanta saaxiibkii rasuulkow, Allah ka raali noqdee hana ku marti qaado sida aad rasuulkiisa u marti qaaday iyo si ka wanaagsanba.